kusoo dhawaada barnaamijkeennii cunno karinta ahaa aad ka daawanayseen somalifood.tv meel alle meesha aad joogtaan. caawa waxaan idiin soo bandhigayaa habka wacan ee loo suubiyo stuffed chicken legs oo dhexda laga geliyey stuffing. waan hore usoo suubiyey waan idin siin doonaa qaabka stuffinga loo suubiyo. waa roodi aan googooyey, ovenka aan geliyey, aan dry gareeyey, kadibna waxa aan ku daray in yaroo kabsar caleene, in yaroo toone, in yaroo basale, in yaroo maxaa la yiraahdaa galley ayaa ku daray, in yaroo galley ayaan ku daray. wax kaloo habeeyanaatay kala ku daray ma jiro. marka waxaan kaloo ku daray maraq yar oo maaragtay maraq digaag ayaan kula qoyay. waa intaas oo way wax kala ma aha. dhinaca kale chickenki waa idin siiyey. chickenka dhexda waxaan ka gelinayaa hadda la yiraahdo stuffingi, dushana waxaan ka marin doonaa barbecue sauce. waa ujeedaan chicken legski waxa aan suubinayaa hadda. chickenka waxaan yeelayaa waa ujeedaan sida uu yahay haka saas weeye. waa ujeedaan dhinacaas ayaan u leexinayaa. kan lafta horaan uga soo bixiyey, kana lafta waa ka bixiyey, kan lafta hadda ayaan ka bixinayaa. waa arkaysan saan lafta uga bixinayo. shayga ugu horeeya suubinaysid meesha lafta chickenka jointska ay iska galaan ayaan midi ayaan halka marinayaa, gelinayaa. ujeedaa baad leedahay ilaa iyo hilibka ayaad jeexaysaa, haragga waad daynaysaa. ujeedaa cartridge-kana go. okay, dhinacan kale laftii ayaan fiil gareynayaa. okay, deboning ayaan ku subinayaa. hilibka ayaan ka dhulayaa. ujeedaan dhinacana sidii oo kale. okay, hoos baan ka soo gelinayaa. okay, lafta waa dhameeyey. halkan laf kale ayaa ku jirta chickenka, waa ujeedaan. laftan waxaan u bixinayaa waa very easily. waa jebin kartaa haddaa rabtid. waa ka waa jebiyey. otherwise midida ayaa dhexda ka gelinaysaa un. that's it. ujeedaan chickenka sida loo qalo ama maaragtay deboning loogu suubiyo lafaha lagaga saaro mar kale ayaan tusinaya. taasna waa cashar kale weeye. lafti waa ujeedaa oo complete. asid waa very easily. miisaankeeda un baan raacayaa. xagga iga dhig. midka kale kan baruurta ayaan ka goonayaa. baruurtaa ka gooyey. okay, baruurta ayaan ka goonayaa. okay, good. chickenkii waxaan yeelay waa soo qaatay. laftii ayaan hadda midida dhexda ka gelinayaa oo chicken legska inta dambe ayaan ka goonayaa, laftii iyo carjooda iyo baruurtii. waxaan yeelayaa chickenka meesha ay maaragtay lafta iyo lugta ay iska galaan ayaan midi dhexda ka gelinayaa si ay carjooda maaragtay u jilicdo. kadibna waa ku xogayaa. midida ayaan lafta la raacayaa oo laftii ayaan maaragtay ka bixinayaa. waxaan ku suubinayaa deboning si aayare hilibkana maaragtay hoos u gelimayo. marka si aayaroo tartiibe ayaan lafta maaragtay chickenka kaga saarayaa. hadda waa ujeedaan dhowr xaba ayaan ka saartay. waxaan soo qaatay bac ayaan soo qaatay. chickenkii ayaan dhigay, kadibna bac kale ayaan dusha ka saaray. si aayare oo janta leh ayaan u garaacayaa. ma doonayo inaan hilibka burburiyo. kadibna waxaan soo qaatay xarig oo aan chickenka stuffinga marka aan dhexda ka geliyo kula xiri doono. stuffinga chicken legska aan dhexda ka gelinayo waa ujeedaan waxa uu ka kooban yahay in yaroo galeeye, in yaroo maraq digaage, in yaroo cusbe ah, celery, basal, kabsar caleen iyo rooti aan yaryareeyey oo aan foornada aan ku qalajiyey. kadibna intaas ayaan isku daray. kadibna waxa aan ku qasay dhowr qaado oo maraq caadi ah, maraq digaag caadi ah oo aan karkarsaday. biyihiisii ayaan ku qoystay. kadibna waxa aan yeelayaa chickenka ayaan dhexda ka gelinayaa. waxaan soo qaatay 2 qaado oo chicken stuffingi ahayd. dhexda ayaan chickenka ka gelinayaa. kadibna waxaan soo qaatay xarig
oo aan ku xirayo chickenka iyo hilibkiisa iyo maqaarkiisa la isku keenayo oo si isla eg aan u xiri doono. waxaan kale oon yeelayaa marka aan xariga chickenka aan ku xirayo waxaan u dhaxaysiinayaa space maaragtay chickenka maaragtay xargihiisa si hodhowto marka dabka grillka oo qabsado oo u qurxoonaado iyo si oo maaragtay stuffingkii chickenka dhexda aan ka geliyay uusan u kala daadan. xarig kale ayaan soo qaatay waan ku xirayaa. waa ujeedaan waa dhameeyey hadda chicken legskan xabadan waa dhameeyey. chicken legski waa dhameeyey. waxaan soo qaadanayaa cusbo iyo saliid iyo maaragtay black pepper ayaan chickenka dusha ka marinayaa. kadibna grillkii oo medium heat ii joogay oo 10 daqiiqo ii daarnaa ayaan chickenka maaragtay skin side down ayaan ka dhigayaa. grillka ayaan saarayaa. dhinaciiba waxa aan dubayaa ama karinayaa 10 daqiiqo. waxaa habboon chickenka marka grillka aan ku subinayo haddii chickenkii aan grillka very high aan geysto waxaa laga yaabaa hilibkii hoose inuu iga gubto. marka hore waxa aan geynayaa first 10 minutes grillka chickenka high, kadibna waxa aan geynayaa medium heat si uu maaragtay chickenka u kariyo si isla eg. waxaan kaloo yeelayaa chickenkii thermometer ayaan dhexda ka geliyey. markuu thermometerka ii akhriyo 170 ilaa iyo 180 dhexdooda oo ii akhriyo chickenka ii akhriyo markaas ayaan waxa aan yeelayaa chickenkii dhinacii kale ayaan u gadinayaa oo labada dhinac marka oo ka bislaado oo chickenkii oo bislaado 180 oo ii akhriyo markaas waxa aan yeelayaa sauce-kii barbecue-ga ahaa chickenka waan marin karayaa. laakiin haddii aan sauce-ka barbecue-ga aan mariyo inta ka horeysa waxaa laga yaabaa in chickenka maaragtay barbecue sauce-kii uu chickenka oo gubo. waxa aan soo qaatay sixni ayaan soo qaatay oo ku gelinayo ovenka broilerka aan ku gelinayo. chickenkiina waxa aan dusha aan ka mariyay barbecue sauce-kii ayaan dusha ka mariyay. broilerkii ayaan hadda gelinayaa. waa ujeedaan dhinaciiba 3 daqiiqo. waxaan yeelayaa oo ku basti gareynayaa ama marinayaa barbecue sauce-kiisi dhinac walba. chickenka waxa aan ku karinayaa broilerka ilaa uu ka gaduto uu ka madoobaado. markaas ayaan ka soo saarayaa xarigii ayaan ka furayaa chickenkii si isla eg ayaan xarigii uga furayaa. kadibna waxa aan geynayaa sixnigii si presentationka loogu talagalay chickenka ayaan saarayaa. chickenkii waxaan ka soo saaray broilerkii xargihiisina waa ka bixiyey. waxaan hore usoo suubsaday waan barnaamijyadeeda dambe kusoo qaadan doonaa hadduu alla idmo qaabka loo suubiyo digirta 3 nooc saladka waxaan kaloo barnaamijkaygii hore uga soo qaatay sida loo suubiyo fried bread rootigii oo la fidiyey oo ukun iyo kabsar caleene ma aragtay lagu shiilay oo loo cuni doono as appetizers side dish ahaan loo cunayo. waxaan soo qaatay saladkii dusha waxa aan ka saaray fried breadkii waxaan dusha ka sii saaray saladkii oo maaragtay digirta ahaa. haddana waxaan ku sii qurxiyey chickenkii aan dusha ka laba lugood oo chicken aan dusha ka sii saaray oo si isla eg u gooyay. waxaan kaloo aan dhinaca maaragtay ka dhigayaa barbecue sauce oo hore u soo suubiyey. barbecue sauce waxaad ka daawan doontaan sida loo suubiyo barnaamijkeygii cunno karinta ahaa cunadii wacneed aad ka helaysaan somalifood.tv. barbecue sauce-kii ayaan dhinac ka dhigtay. waxaan kale aan soo qaadanayaa barbecue sauce oo aan maaragtay sixniga maaragtay inta hore maaragtay ku shubayo. anigoo ah Sheef Cabdicasiis Dhicis ku soo dhawaada barnaamijyadii maaragtay cunno karinta ahaa Somali Cooking Show Somali Food Television iyo cunadii wacneed. barnaamijkayga waxa aad ka daawanaysaan 3 television, waxa aad ka daawanaysaan YouTube-ka, waxa ka daawanaysaan First Somali Food Channel oo magaciisa la yiraahdo somalifood.tv meel alla meesha aad joogtaan adduunka. sidaa iyo nabadgelyo.